कि मैं कुछ कर नहीं सकता मेरे caalam alislaami waxaynu arkaynaa dhib badan baa ka jirta umamkana waxyaabaan rabaa inaan idiin tilmaamo haddii aynu rabno in la helo dad quman waa in la helaa cadaalad waa in la helaa aqoon waa in la helaa xorriyad saddexdaa cagsigood oo ah dulmiga iyo istibdaadka dictatorship in dadka la gumaysto iyo mas'alat aljahl waa asalka tilmaamaya ummadaha dib u socda haddaba maanta caalam alislaami waxaa ka jira xadgudub dulmiya oo in badan oo ka mida reer galbeedku ay wadaan dulmi reer galbeedku intiisa badan ay mas-uul ka yihiin baa ka jira iyo xukaan badan oo ka talisa caalam alislaami waxaa ka jira istibdaad iyo xorriyadda aan laysu ogolayn waxaa ka jira tajhiil dadka oo diintoodii jaahil laga dhigay hadday saddexdani dhacaan maxaa soo baxa waa halkaa marka halka aan ka rabo ictidaal ma ka samaynayna mise ka samayn mayno haddii cadaalad la waayo xorriyad la waayo jahligu uu tiro bato ummadda intaasi ay ku dhacdo laba mid baa ku dhaca inay dullinnimadii iyo mahaanada aqbalaan waayo daalimka baaqiga ahi qofka xadgudbee wax dulminaya madluumka cidda la dulminaya wuxuu ka rabaa maxay alhaziimatu waaldullu waalmahaanatu waalinbitaax waaltabaciya buu ka doonaya wuxuu ka rabaa inuu in la jabiyey qirto oo uu hoggaansamo oo isaga afkaartiisa iyo caqaa'iddiisa daba socdo oo dullinimo aqbalo inuu gumaysiga aqbalo oo dulloobo waa daraf waa xagjirnimo laakiin waa xagjirnimo xagga dulliga ah amase mararka qaarkoodna waxa dhacda madluumku inuu jaahil yahay maadaama laga ilaaliyo aqoon fiican aanu helin maadaama jahligu tiro bato waxaa soo baxa kii la dulmiyey oo isna radical dhanka kale waa markaa wuxuu arkaba inuu iska celiyo un diyaaru ah wax dil adna dhimo reer galbeed markaa weli waxay u arkaan xalku inuu yahay alxal اlamni uma alamni uma alamni uma alamni hada huwa alxal cindahum dictatorshipka caalam alislaami joogaana isna xalka kaasuu arkaa wuxuu arkaa qadiya amniya inay tahay oo qadiya amniya ay tahay oo qadiya amniya ay tahay marka waa in booliiska la tiro badiyaa jeelasha la tiro badiyaa dayuradaha la tiro badiyaa mafaaficda la tiro badiyaa wixii la gumaadi karo waa in la gumaadaa that's western ideology weeyaan waana dictatorshipka xaggeenni ku nooli waxay rumaysan yihiin dadkii la tumay boorka iska qaadays yidhahdana wax walba iyana waa qarxiyeen kuwanina sii cadaadiyay bay leeyihin oo qabadsiiya dhulka inta naftu ka baxayso dhulka ku nab laakiin taasi waxay dhashay iyadaa tatarrufa dhasha waayo dhallinyaro la tumay oo la cadaadiyo xuquuqdoodii la weysiiyey aan shaqo haysan aan waxba haysan la gumaysanayo waddankiisii la boobayo wax walba lagu samaynayo la garaacay iyona intay meel madow isla galeen bay iyagu shuyuukh isu noqdeen oo isu akhriyeen oo nag isugu sheegeen oo whatsapp isugu sheegeen iyo media iyagaa isu culamo ah iyagaa markaa tooda wada haddii xorriyaddu ay faafto oo dadka loo ogolaaday afkaartiisa inuu sheegan karo tatarufku wuu yaraadaa dunida dhammaanteed taariikhdeeda akhri meel cadaalad iyo xorriyadi yaalliin tataruf kama dhicin isqarxisku dunida goormuu bilaabay
meel la isku dulmiyey buu ka bilaabay meel la isku dulmiyey buu ka bilaabay sharaaradiis iyo nataa'ijtiisu meelo kale way gaadhay laakiin asal waxaa ah asalku wuxuu yahay hadday dadku xorriyad haystaan inay ra'yigooda bandhigi karaan asalku wuxuu yahay hadday dadku cilmiga la ogolyahay inuu faafo aqoontu ay faafayso asalku wuxuu yahay haddii cadaaladi jirto qofka loo cadaalad samaynayo qofku mutatarrif ma noqdo cagsiga laakiin haddii dulmigu uu sii bato xabsigu sii tiro bato muraaqabada iyo dadka daba socodkoodu sii tiro bataan dadka dhaqdhaqaaqooda iyo la socodkooda lasii dabagalo waa bii-ada radicalizationku uu ku sii faafo wuu sii badanaya isaguna ka islaam ahaan dadka muslimiinta ah barh baa raba inay diintoodii dabaqaan laakiin iyana xagga kale uga murkuday ninka dhallinyarada xamaasadaysan ama madluumkee la dulmiyey inuu cadaaladda ka taga diintu ma sheegayso ilaahay qur-aanka wuxuu ku leeyay walaa yajrimannakum shana'anu qowmin an saduukum can ilmasjid alxaraami an tactaduu ilahay wuxuu qur-aanka inagu leeyay walaa yajrimannakum yo idinku xambaarin cadho duulaa u qabtaan oo inay masaajidda idiin diideen inay idinna xadgudubtaan idan adigadana tahaadu sax noqon mayso anna wixii iga hor yimaadaba waan qarxin waan dili waa taasina sax noqon mayso saa daraaddeed baa ilaahay wuxuu leeyahay cadhadaa qabtaan inay idinna xagga kale idin geysa ayay dhici aayaadkan ayay ku soo degayaan nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadiisii oo maka laga eriyey oo la isku dayay in la dilo oo la cadaadinayo o la dulminayo hantidoodii laga qaaday oo waddankoodii laga saaray oo loo diiday inay cibaadaystaan baa ilaahay qur-aan soo dejinaya uu leeyahy walaa yajrimannakum shana'anu qowmin haddana waxaa la rabaa eelekshiga ama doorashada in lagu carqaladeeyo dan shaksiyadeed annagu ka yeeli mayno ummadda soomaaliyeedna waxaan leenahay il gaaro ku fiiriya hana ogolaanina isbeddelkaanna waa in laga wada qayb qaato haddii uu jiro isbeddel joogto ah cid ku maalgashanaysa ma laha waxqabadku naftigiisa waa saa sheegtay waxaa laga yaabaa dadka yimaada inay kow ka bilaabaan marka isbeddelka naftigiisa waa qayb ka mid ah dib u dhaca laakiin 2 sano iyo bar ka hor ayaan u sheegay shacabka Soomaaliyeed inay naga horeyso meel barwaaqo ah 45 milyan oo ugu horeysay bangiga adduunka caawa ayuu ku soo diray akoonka dawladda Soomaaliya